guddiga agaasimayaasha bangiga adduunka ayaa ansixiyay lacag dhan 137.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah taasi oo lagu caawinayo Soomaaliya si ay uga jawaabto dhibaatooyin dhowr ah oo dalka ku habsaday sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga adduunka waxa dhibaatooyinkaasi ka mid ah abaaro sanado badan dalka ku soo noqnoqday ayax ku habsaday oo halis ku ah cunnada iyo cudurka coronavirus oo haatan ugu darsamay lacagta uu ansixiyay bangiga adduunka waxay qayb ka tahay barnaamij loogu magac daray mashruuca ka jawaabida xasaradaha Soomaaliya waxaana uu kaalmo degdeg ah siin doonaa meelaha ay dhibaatooyinka ugu badan ka saameeyeen Soomaaliya barnaamijkani wuxuu sidoo kale xoojin doonaa nidaamyada dawladeed iyo awoodda ay Soomaaliya ugu diyaar garoobi karto musiibooyinka xasarada soo noqnoqday oo sii kordhaya isla markaana burbur leh ayaa hortaagaya fursadaha ay Soomaaliya uga bixi karto jilicsanaanta iyo saboolnimada waxa sidaas yiri agaasimaha bangiga adduunka ee Soomaaliya Philip Cheremelo mashruucani waxa si degdeg ah uga faa'iideysan doona 1.7 milyan oo dad Soomaaliyeed ah gaar ahaan kuwa u baylahan ama ugu saboolsan bulshada qaarkoodna waxay heli doonaan lacag kaash ah sida uu sheegay Cheremelo 20 milyan oo ka mid ah lacagtaasi waxa lagu maalgelin doonaa dadaalada ay Soomaaliya uga jawaabayso cudurka safmarka ah ee coronavirus wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in mashruucani uu Soomaaliya ka taageeri doono wax ka qabashada xaaladaha dalka ka jira sida xanuunka coronavirus fatahaadaha iyo abaaraha waxaan aad u soo dhaweynaynaa talaabada bangiga adduunka oo uu ogolaaday Soomaaliya lacag dhan 137.5 milyan oo dollar waxa sidaas yiri wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle